السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaad kala hadlaysaa Yasmin Kastan. waxaan rabaa inaan wax yar update idin sheego oo ku saabsan Ombasif iyo maalintii dhaweyd hadalkii webinaarka ugu dambeeyay laga sheegay oo ahaa isticmaalka magaca Ombasif ee loo isticmaalayo siyaabaha shakhsiyanka ah. waxaan haddeertaan ka soo baxay shirar iyo updates aan soo dhageystay muxuu ahaa oo uu Redfern ka mid yahay. wuxuu yiri waxaan mar hore soo qaaday si guurista Ombasif ecosystem inaad iska saxdo walaal hadday wax yar kaa yara qaldan yihiin, haddii kalena aad muxuu ahaa ii sheeg cilado ay jiraan sabti axadaha ay la qaban doono train bahalihii caawimaadii ugu dambeysay seminaaro yar oo caawimaadii ah axadda badanaa ay jiraan sida dream team oo kale midka engineer Mike Asia Pacific inay qabanayaan idmo axadaaneeto iyagana waxay la sameeyaan axadaha dadka kuwa Netherland group. waxaa kaloo jiro heroes kuwa la dhaho, halkaas ayaa cilad hadday ku haysato oo guurista xaggeeda gabagabadii ayaa la marayaa lagaaga xalin doonaa. mana filayo dadkeena Soomaalida sidaan ka warqabo inay dad cilada haystaan ay jiraan guurista OBS. qodobka labaad wuxuu yahay waxay wada hadleen oo akhbaarta isticmaalka magaca Ombasif u kala siiyey caddayn clarification wax la yiraahdo engineer Maxamed Kamaal oo ah madaxa operationska oo ku base garaysan Abu Dhabi Ombasif. wuxuuna u sheegay in magaca Ombasif yacni maadaama hadda uu hana qaaday shirkadii oo dad badan ay soo galayaan oo ganacsata oo very high profile ah ama dad shacaba customerska ay soo noqonayeen isku soo qorayeen website-ka ay aad kumanaan u gaarayeen aad u fara badan milyameed ah ay dadkii isdhihi karaan bal eega akhbaaraadka Ombasif markay magaca Ombasif geliyaan meel walba uu kaga soo boodaa 15 shakhsi oo brand ambassadorska ahaa oo isticmaala magaca Ombasif facebookyadooda. marka taa ayaa la isku ururinayaa in hal jiha waa tii la yiri Dr. Soha ay tiri one page iyo one language ayaan waxaan ku wada soconaynaa hal luuqad hal af iyo hal tallaabo ayaan wada qaadaynaa annagoo dhan hal ujeedaan leenahay oo guul ah iyo sidaan uga miro dharin lahayn dadaalka faraha badnaa iyo sugidda faraha badneed ee aan soo gelinay shirkaddan. marka walaalayaal waxaa la yiri haddii facebookkaaga ama youtube-kaaga ama email dad samaystaa jiro Soomaalida uma malaynaa inay samaysteen dad email ganacsi ah suubsaday ayaa jiro oo Ombasif ka dhigtay waxaasoo dhan in la dejiyo. gruubyada ugu waaweyn ee aan la soconnana way dejiyeen OP ayay ka dhigteen. marka magaca Ombasif lama ogolaan doono. shirkadda keliya waxay noqonaysaa hal website leh iyo meelaha iyaga ay ugu talagaleen balogooda ama social mediahooda ee akhbaarta saxda ah oo professionalismka ah oo shirkadda habaysay dadku halkaa ay kasoo eegan karaan. annagana danteena ku jirto hal meela loo wada socdaa. marka waxaa la yiri qof walba magacaas Ombasif hebel hebel ha iska dejiyo ama Ombasif wadankaas ama Ombasif qowmiyadaas dad badan oo isticmaalayay. OB waa isticmaali kartaa haddaa annaga nahay Soomaalida oo kale OB Somali group baa la dhihi karaa. haddaa doonto adiga shakhsiyadaada oo facebookyadaada ama pageskaga ee Ombasif kuu saarneedna waa iska dejinaysaa OB hebel hebel OB Yasmina ku qoran ama brand ambassador waa ku qoran kartaa. ta saddexaad oo laga hadlay oo waxay tahay in weli aad tihiin wakiilkii sumadda founderskii shirkaddana aad tihiin oo aad ka hadli karto mar walbo xayeysiinta iyo horumarka iyo wax walbo ku saabsan Ombasif aad ka hadli karto, laakiin marnaba aana loo isticmaali doonin shakhsiyaad qofna uusan dhihi karin anigoo Yasmina Ombasif ah yacni shirkadda isma la haysiinay sida shirkadii hore usoo jiro kale kambaniyada waaweyn oo kale waa wada naqaanaa. qofna Apple iyo Dell iyo ma dhaho afkooda kuma hadlo. markaa sidaas unbaa laga wadaa waana lasoo kala caddaynayaa. ta afaraad wuxuu yiri uu kor ka soo ogaaday in mustaqbalka soo socda ay noqon doonto shirkadda ay u approve garayn doonto in dad qaar ah ay isticmaali doonaan calaamadda shirkadda Ombasif ah iyo Ombasifta keligeed
marka brand ambassadors selective brand ambassadors ayaa la yiri ma mid wadaneed ay noqon doontaa dadka wadamo loogu kala qaybinayo ma mid leaderska noqonaya mise mid brand ambassadorska noqonaya taasina waxay ku xiran tahay oo soo cadeyn doona shirkadda marka selective corporate approval wax la yidhahda ayaa jiri doona oo loo ogolaan doono inay matalaan magacana loo ogolaan doono inay saartaan ombaasif iyo calaamadaba ay saartaan laakiin inteena kale oo tirada badan ee shacabka ah waxay danteenu ku jirtaa in warbixinta wanaagsan ee shirkadaha waaweyn ee annaga noo noqon doona macaamiisha iyo customerska caadiga ee noo soo geli doona oo aan filayn inaan annaga faa'iidadeen ay ku jirto inaan ka wada shaqeyno oo mid sax oo professionalism ay helaan oo websitekaas ay ka helaan la habeeyey ee shirkadda ama social mediaheeda ay ka helaan wixii loogu talagalay oo macaamiil uu soo jiidan karo taasina waa danta guud ee shirkadda iyo annagoo founderska ah intaas ayaan idin sheegayey marka waxaan filayaa inaad fahanteen intuusa gobolka idinku dhicin qofkii magacaas u baxsan yahay uu iska soo gaabiyo ama iska qaado sidii kuu wanaagsan adiga kulley waqti ayaa dadka la siiyey waqtigaasaana muxuu ahaa insha allah lagu soo koobi doonaa emailada xataa si in dadka qaar ku baxsadeenaa jiraan oo emailkooda business emailkooda ka dhigta magac umbaasif taana waa lasoo afjari doonaa waa lagu wargeliyay dadka idinkana waxaan idin dhihi lahaa saas ku ahaada updated akhbaartaas yaroo soo korodhay waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo iyo in aad u hoggaansanaano sharciga adeecno waxa ka soo baxay shirkadda mar walbana aanu ku ahaano kuwa aweera oo la socda warbixinaha cusub oo soo baxay webinaaradii ash ee iman jiray weli lama soo sheegin badanaa sabtiiday kusoo dhici jireen ilaa haddeertaan maantoo jimcada joogana weli lama soo sheegin haddii wax albaara kasoo kordhaana waa wada ogaan doonaa wax kastoo abdeydan waxaan ku ogaan doonaa back officekeenna waa mahadsantihiin